wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kitaabka musxafka Quraanka Kariimka u qaybisay ciidamada xoogga ee ku jira dugsiga tababarka General Gordon ee magaalada Muqdisho. warkaas waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Xasan Cali. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mudane Cismaan Aadan Dhuuwo oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa maanta kutubada Qur'aanka Kariimka si u akhristaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan u qaybiyay cutubyo ka tirsan guutada 14 Oktoobar ee ku jira xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho. madaxa hoggaanka siyaasadda ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cabdixamiid Cali Xeedar oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay wasaaradda soo gaarsiinta waxa ugu qiimo badan ee la siiyo oo ah kutubada Qur'aanka Kariimka. kitaabtaas musaaxifta ah ayuu wasiirka iyo noo keenay waftigiisa aad ayaan uga mahad celinaynaa. waana wasaaraddii ugu horreysay oo noo timaado nagala soo qayb gasha ciidankan sharafta leh halkaa fadhiya noo timaada oo deeq noo keenta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaanu leenahay aad baad mahadsantihiin baarakumullahu lakum wajazaakumullahu khayr wa ahsanallahu ilaykum. waxaan rajaynaynaa inaad mar walbana nala garab taagnaan doontaan taageeradiina. mudane Cismaan Aadan Dhuuwo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo u qaybiyay kutubada Qur'aanka Kariimka ciidamada ayaa kula dardaarmay inay akhristaan isla markaana ay ku camal falaan sida hadda dareenka u yahay oo aad dareemaysaa shucuurta kulliba keentay maalintii 14 Oktoobar oo waqti aad u adag ah Soomaalida taariikh ah waxayna qasbaydo lahayn in aad dareenkiina ka keentaan in aad dalka iyo dadkiina aad ka difaacdaan kaliya ma waxa la leeyahay markaste oo qof muwaadina oo sharciyan loo dhaaranayo mas'uuliyad mid yar iyo mid weynba waxay tahay in lagu dhaariyo dalka dadka iyo diinta markastaba inay tahay waxa xawliga ah oo yaala ee kitaabka Allah. xiliyadan oo kale ayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxa ay wadaan sidii looga faa'iideysan lahaa gudashada acmaasha bisha barakeysan ee Ramadaan dadweynahana loogu wacyigelin lahaa. Maxamed Xasan Cali, idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.